oran karaa dagaal hadduu kow yahay haddaan oran karaa mar haddii taangiyadii mudug yaalay iyo kuwii buuhood la yaalay bi'amadii garowa yaalay intaba hadday caawa kolonyo soo galeen haddaan oran karaa dagaal haddaan oran karaa waxaana dagaal lagu tilmaami karaa muuse waxay la tahay taangi iyo bahalkii uma harin waxa kaliya u haray waa dhalinyaro yaryar oo waaraado shacableeya la soo saaro dhalinyaradaasi shaqo badan ayay nooga baahan madax iyo gur gacantaana daalays bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh waxaan rabaa saddex qodob inaan galabta halkan kaga hadlo qodobka koobaad waxaan rabaa maxaabiista la idinku wareeriyay ee SNM haysato ama jamhuuriyadda baridu inaan xog idinka siiyo maxaabiistaas inta ay yihiin qabiiladooda dhamaantood anoo afkayga kula hadlay oo aan ciidiga sheekeen xoogaal loo ayaga laftoodii qodobka kale aan rabaa inaan sheego waxa weeye xaalka dagaalku halka uu marayo ayadana inaan idin iftiimiyaan rabaa qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan baaqalkan uga diro beel kasto hartiya aan ku hormaro maxaabiista ku hormaraya maxaabiista hartiga laga hayo waa 9 maxbuus wey 9 maxbuus afka aan leeyahay kula hadlay ragaas waliba ragii ugu sareeyaan afkooda kula hadlay burcay hadda ku sugan yihiin xabsi burcaabay joogan ragaas qayb waa dhaawac dhowr nin baa fiyow inta badan waa dhaawacu waa kala daran yahay dhaawac culus iyo dhaawac fudud inta ugu jira ragaasi 5 nin waa Ciise Maxamuud hal ninna waa Umar Maxamuud 3 ninna waa Dhul Bahant waa 9 kaanin nimanka halka ku xiran oo ay maanta lahaayeen 14 baan haynaa toogashan ku xukunayo waxa ragaasi waxa la tacaalaysa oo caafimaadkooda la wareegtay waxa gacanta ku haysa jamhuuriyadda barida laakiin waxa caafimaadkooda la tacaalaysa daweynaysana hadii la ku rooyo hay'adaha xuquuqul insaanka oo kamid tahay bishaas ayaa noo sheegtay inay dawadooda iyo caafimaadkooda ay uga qabaan ragaan la hadlay qayb kamid ah biriba la kabaya qaybna waaba la kabay oo hadii la ku isbitaalka yaalaan qayb kamidana intooda dhaawac fudud ahaydna waa xiran yihiin arsadoo kale aan wada hadalnay biri ayaa la kabaya oo gacan baa burbursan xaalka ragaasi waa halka kelmadda ay soo saareen waa dilaynaa iyo waxaasna wax ka jira ma jiraan waxay isleeyihiin ciidamada soo gurmaday waxaas ku cabsi geliye laakiin wuxuu haysan waa dadka macaasiraakiishooda dad shacabo nin meesha awal dhibasho u yimid ama diyaal ku rooyahay inuu wax dilo u yimid way ku leeyeen hadaan ku qabanno waa ku dilaynaa sida hadda kuwaana waa tooganayna ma toogan karaan 24 nin baa laga hayaa oo maxaabiis ah oo ku xiran hadii oo Muuse in adeegtiis ku jiraan Muuse Ciise Saad Muuse oo hadii la ku rooyahay meesha dhex fadhiya oo saraakiila laga hayaa 24 ma laga hayaa 9 haduu dilo 24 adaaba baaqilaba double tibar aba baaqile marka maxaabiistu halka weeye waxay dili karaan ma jirto haday dilayaan marka hore ma soo bandhigeen xogaa jogayna waa laga yaabaa inay u geystaan laakiin ma dili karaan oo ninkiisi la hayo kuma dhiiran karo inuu nin kala dilo maxaabiista 24 ka ay laasaan lagu hayo jamaahiirta aysan waxaan leeyahay maxaabiista si fiican oo la dhaqma waa halkii gobernimada ahay ilaahay uma kalkaalo mana u maciino in maxaabiis ama adoon uu leeyahay hadii ay ku rooyay dila waana gunnimo oo nasabad male maxaabiistaas aad haysaan wararka la soo gudbinayo maxaabiistii baa la bahalkeeyay maxaabiistii baa la idinka laayay maxaabiistii baa la tir dilay idinkuna kuwaan dila iyaysan idin gelin waxaan idin cadaynayaa maxaabiistaasi inay nabad qabaan 9 kan yihiin 3 nin Dhul Bahant tahay 5 nin Ciise Maxamuud tahay nin Umar Maxamuud yahay maxaabiistaas waa la tacaalayaa si wanaagsan intii burcal la geeyayna waxay ii sheegeen si wanaagsan in loo dhaqmay xabsina ay ku jiraan halka qodobka maxaabiista waa halkaas ana afkayga kula hadlay cidna hadii la ku rooyahay weydiin meysaan ama hadii la ku hadalka ku jira maxaabiista aysan marka ilmaada riyaalo gunnimo dagaalanka ama gunnimo hadii la ku rooyo dhaqanka iska dayno maxaabiistaas si wanaagsan loo dhaqmo wixii dhaawacana hal la daweeyo taas intaasaan leeyahay jamaahiirta qodobka maxaabiista ka saaray kaga gudbay xogtiisana waa intii qodobka kale rabeen dul istaaga waxa weeye dagaalku waa isbedelay dagaalku awal kaftan iyo dhabuq iyo hadii la ku rooyahay waliba dhinaca hartiga dabaq iyo isla weyni iyo Muuse waa baxayaayo isaaq waa tashada isaaq kaliya ma isaaq iyo godobiirsay iyo dir waqooyi wixii halka ka joogay waa tashadeen halka waxa la yiri walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelaan noo fadhiya
maanta haddii ala ku rooya aan ka baxna soolna wax aan la joogno 30 sano riyada ahayd waa baabad halkaas inaan ku baabacno oo Soomaaliland wax la yiraahdo isaaq iyo dir waqooyi baa jiray in la yiraahdo la kaadkaado iyo inaan wadankaas sida ku haysano oo ceelasha shidaalka ilaa iyo holhol iyo taleex iyo laas aana gowyaheeda aanu caalamka iyo shirkadaha shidaalka halkaas irsaaqadi kama sokayso dagaalkana ninka og baa og sidaan kaga dhacay ma garanayo hadii ala ku rooyahay qolyihiina jamaahiirta dagaalkani dagaal waxa weeye dhaqaale weeye aan ku jirno dagaal waxa weeye shidaalkaagi iyo hadii ala ku rooyahay iyo hadii ala ku rooyahay macdantaadi iyo hadii ala ku rooyahay saliidaadi mar hore inta kontraktiga la galay asaga weeye waxaad ku dagaalamaysan dhulkaaga khayraadkiisa ku dagaalamaysan nimanka ee wax kale oo idinka dhaxeeyahay ma jiraan ayaguna maanta waxay ku dagaalamayaan waa batroolka iyo saliida ku jirta holhol iyo taleex iyo inta u dhaxaysa lascaano iyo ilaa iyo gambaro ilaa iyo meesha la yiraahdo og iyo adiyaal ku rooyay intaas weeye inta la isku haysto nimankaas marka waa tashadeen wax allaala waxay hayeen ciyaalkii dhalinyarada 15 sano kii gaaray oo qori qaadi kara waaraad badabada loo soo gashay waa kuwaana ayagoo soo taxaabay tiknikada awal bay saharin waaraadadii shacabka ayaa shacabka inta qori ciyaalkii inta dharkii shacabka laga bedelay tuuta loo gashay ayaa la soo jamaahiirta la hadlayaa waqti tira badan adiyaal ku waqti dheer bay ku qaadanaysaa marka in loo diyaar garow loo baahan dagaalka kachinka iyo dhaqan xumada in laga daayaan baa loo baahan in si toos ah dagaalka loo soo wada galo ayaa loo baahan idinka xaqiina hartiga marka la yiraahdo beel kastaahi ciidankeedii marka ciidan iyo qoriyaheedii soo didha ciidankeedii iyo qoriyaheedii soo didha ayadii baa laata ku cagacagaynays halkan ilaahay baa laga ka dhigay ciidankii iyo isla laakiin ay haysteen iyo qoryahoodii ciidankii laba guuta saddex guuta waa la dajiyay baabuurtii qayb meesha taala ciidankiina waa kuwa hadda loo soo qoray ciidan cusub la sii wadaayo lalaaya la sii wadaa sida u diyaar garooba sidaas wala socdo intaas waxaan leeyahay waa dagaalka xaaladiis mid baan idin sheegaya marka hadalkayga si fiican ha idin galo isgaarsiiyana oo soo sheergaray waxaan leeyahay saddexda bariga soo socota dagaalo waxa dhacaya ahliya oo aan wax la reebanaya jirin hal mar la ruqaansanaya dhacay dagaalo laga gacan buuxsada dhacay oo dhameystiran intii haati u talinaysay ama maqaawurteedii talada isku meel baa la dhiga hub waaweyn wixii ahaa hadday gaalka ay yaaleen taangiyo hadday buuhood la yaaleen BMadii garow yaalay wixii waa la soo rara oo caawa wadada soo saaray waxa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay hartiga la hadlaya fariinteeda gaarsi ma jeerteen baa la hadlaya warsangali baa la hadlaya dishishan la hadlaya hadii ala ku rooya waxa la hadlaya kasqiqa baa la hadlaya haduu harti oo dhamaan la hadlaya sida halka wiilasha looga soo gurayo oo waaradada la hoosaarayo dib ugu laabta oo ciidamada soo dhooba kaneeca ragga dili jiday awal be soo dira warsangaliyow dib u laabo ma jamaahiirta warsangali dib u laabta 15 sano wiil jira naas gaaray yaa laga soo tagay Isa Maxamuud reerka la yiraahdo wax ay reebteen ma jiro caaw wax allaala waxay hayeen waa soo dhoobeen 2000 oo wiil oo Isa Maxamuud ba ilaa xalay ilaa shalay soo xarootay awal diya kachi buu ka ahaa dagaalku Cumar Maxamuud infantry kama iman kuwii hore waxaan ahayn Cumar Maxamuud oo dib isugu laabto soo wada gala dagaalka taangiyada soo baxay caawana soo raaciya waaraada infantry soo raaciya Ali Saleebanow inta tire leegtiini wax meesha ka jooga ismale dib isugu laabto dishi show hubkaad meesha keenteen iyo ragga saaran mid leeyahay kaga baahan yahay ma mid inta leeg ma loo baahna ka badan baa leeyahay kaga baahan infantry baa leeyahay kaga baahan soo yaacay sida halka looga soo gurayo waa la ismaquunanaya waa la ismaquunanaya halka waxa caruur muus soo gurayo ee 40 bari leeyahay 40 bari lagu tababaray 30 bari lagu tababaray bil tababar leeyahay waxaas shaqo badan bay kaga baahan madaxya gur bay kaga baahan madaxya gur ila wada xiidaan xiritaan bay kaga baahan waxa marka waxa loo baahan yahay infantry xaq lahaaba loo baahan infantry waa haystaan 20 kun ciidan haystaan laakiin ka badan baa loo baahan laba rabo qofka inta is awood leeyahay al abaar sijida waxa la rabaa in la yiraahdo
meeshaan madaad baa maray mise bini aadan baa maray dib isugu laabta dagaalkuna dhab hadii ka ahaado sida dir waqooyi oo dagaalku dhab uga yahay runta idin sheegaya faan iyo dhalaqayna meesha soo fariisan lama rabo dagaalku hartiyow dhab ha idin ka ahaado sida dir waqooyi dhab uga yahay dib ugu laabta dib ugu laabta ismaan maxamuudow tiknikada meesha idin ka maraysay baabuurtiin iyo ciidankiinu isma leeka ma la gaabiyati ma isaan xad ka yeedin isaan xad ka yeedin dib u laabta soo gura aan xamsido kale dib u laabta soo gura waxa haysa efentariga soo qaado intaasaan idin leeyahay harti oo dhan maan leeyahay dishaan leeyahay warsangali baan leeyahay cid kastaan leeyahay dib isugu laabta dagaalku sidii la moodayay waa ka sii kululaanaya nimankaasi waa tashadeen in ilaa la gaasiro oo la yiraahdo isaaq baa jiro dir waqooyi baa jiray in la yiraahdo iyo inay guuleystaan bay ku talagaleen waa ninnimo ogow waa nin iyo waa raganimo ogow waa raganimo ninkuna go'aan leeyahay idinkana waxaan idinka rabaa inaad waxaas shaqo badan baa idin sugaysa wax halka caruur soo guraya in sidii madaxa looga xiiri lahaa baa idin sugaysa haddee soo badiya ciidamada dagaalkana dacada laga ahaado saraakiisha dagaalka hogaaminaysa go'aamada ay gaareen halkan ka sheegi maye waa uga mahad celinayaa dadaalkiina iyo sida aad iskugu soo hawsheen inaad wax allaale wixii waaweyn harti lahaa inaad soo wada xaraysaan thank you baan leeyahay isimada islaam bashiir islaan ciise garaadada dhammaan intii ka shaqaysay isimada kala reebi maye ilaa ogaasiyo ilaa beeldaajiyayaal waa mahadsantihiin thank you baan leeyahay garab istaagiina iyo shaqada haysaan halkaana qodobkaas ku xiray qodobka kale aan ku xiraya waxa weeye qodobka kale aan ku soo xiraya barnaamijkayga waxa weeye si baan ay dhageysta waxaan la hadlayaa reer laascaanood iyo jamaahiirtaan la hadlaya jamaahiirta waxaan leeyahay waa dhalinyarada ciidamada fariisimada fadhiya ee kala dambeynta la sheegi mayo dhalinyarada la hadlaya waxa weeye kuwa markii xabadi dhacdo life kasa ola wada ordaya haddaa wariye tahay iyo haddaa askari tahay arrintaasi waa mamnuuc wey mar dambe inay dhacdana lama rabo ciidamada kala dabahara kaamirada ala daba taagantihiin please and please ma ogtahay kaamiradaadu waxa ay yeeli kadho ma ogtahay rag ama duqaym lagu raadinayay ama baanka lagu raadinayay inaad adigu sawidid ama diyaar ku rooya live ka dulgashid idan dhulkii waa la wada yaqaanaa buurhebel wala garanayaa in halkaa looga wada jeedo mid kasta iyo inta ciidan halkaa yaala iyo inta gaari halkaa yaala ma ogtahay adoo faan isleh ama haddii alla ku rooya adiga ay farxad kaa tahay inaad sirta walaalka ciidanka kula ahaa ama ku difaacayay aad bixinaysid dabadeedna haddii isaga ay dhabarjab ku tahay waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado in dhalinyaradu ay kaamirooyinka ay isla dhinac ordayaan joojiyaan wariyaasha laascaana jooga ee hiilka ku yimid ee inay laascaana tabiyaan wax kasta ku yimid hal arrin baan idiin sheegaya fadlan wariyaashu waa labo mid waxaa jira meeshaan irsaaqadi keentay oo haddii alla ku rooyahay wariya dhexdhexaadaan ahay yidhaahda kaa sheegi mayaanu kaa la hadli mayo kaasi musabixigama duwana laakiin waxaan sheegayaa wariyaasha meesha hiilka ku yimid oo rag badan ee ka mid ahay oo dhala ka mid yahay oo kilwa ka mid yahay oo ragga dhalinyarada haddii aan garanayo aan saaxiibka nahay oo middaan idiin sheegaya waxa weeye ilmaada rayaal guutooyinka ciidanka iyo madaxyada ciidanka ku kala biira si markay ciidanku idiin baahdaan shir jiraahid qabanayaan oo kale wax la soo bandhigayo oo kale si aad kaamiradiina loo adeegsado laakiin kaamiradiina dagaalkoo socda yaysan ka soo dhex muuqan ama ilaaliya xogta ciidanka taasina waa mid aan ku dhiirigelinayo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay dhalinyarada qoryaha wadata ee TikTok iyo Facebook live kaga jira waxaas mar dambe yaysan dhicin wixii hore u dhacay waa dhaceen mar dambe yaysan dhicin waxaasi xogta ciidankana ilaali waxaad ogtihiin laascaana xalay in lagu qabtay 3 naagood 2 nin iyo naag jaajuus ahaa oo teleefankoodii markii la furay laga helay inay ciidanka xogtiisa bixinayeen inay hoobiyaasha iyo madaafiicda hagayeen inay haddii alla ku rooyahay meel kasta ku hogaaminayeen haddii alla ku rooyahay madaafiic ku hogaaminayeen codadkooda ayagoo leh halkaa waa la weyday ku soo celiya isbitaalka manhal ku dhufo isbitaalka baalka ku dhufo guryaha sayidka guryaha muxuu ahaa garaadada ay la baadigoobayeen waxaasoo dhan magaaladu waxay u baahan tahay
inaad sifaysaan oo gacanta ku dhigtaan magaaladu waxay u baahan tahay inaad boolis u samaysaan amnigeeda sugan magaaladu waxay u baahan tahay in laga mamnuuco qof aan la garanayn oo loo abtirinayo la yiraahdo qof kasta kuma tahay loo abtiriyo magaaladu waxay u baahan tahay in gaari technica iyo askariba laga mamnuuco magaaladu waxay u baahan tahay daraagiska iyo khamriga in laga mamnuuco oo la yiraahdo qofkii cabsan la arko xabsiga laga dhigo saraakiisha ciidanka waxaan leeyahay shaqada qabta qofka cabsani ama daroogada ka soo geliya magaalada kama duwana cadawga ala dagaalamaysid kama duwana sababtoo ah waa fashiliyaha xogtaada waa fashiliyaha amnigaaga waa lidiga ninka ku naftaada wey ciidan dhan in la yiraahdo khamri baa loo geynayaa ma ogtahay khamriga waxa lagu soo dhaxqarin karo ma ogtahay in lagu soo sumayn karo ma ogtahay inta ciidanka lacag la'aan bal lagu karo heel baa idin qaada la yiraahdo in subax ayago cawgiira la soo toosin karo taa ma ogtii khamrigu meesha kaga yimaado ma ogtii inuu hargeysa khamrigu kaga yimaado ma ogtii waxaas oo dhan ma ogdiin war ilma adeerayaal oo ilma adeerayaal hankiinu ha ka sareeyo shalayna waa idin la hadlay hankiinu ha ka sareeyo aagad khamriga qor la furto iyo gaar la caybsado war ilma adeerayaal hankiinu ha ahaado dhulkan iyo dadkan sidaad u xoreysan lahaydeen burca iyo hargeysana u tag lahaydeen intaas aan idin leeyahay mar labaad ma saddexaad baan salaamaya wa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh